السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت لي وحورن sideetiin mii fiicantiin xaaladiina ka warama aan idin wanaagsanahay kusoo dhawaada video cusub videoga maanta idin la wadaagaya waxaa waaye morning routinkeyga ama routinkeyga subaxnimo soo dhawaada saaka waxaa waaye intaan salaadii subax kacay oo aan tukaday baan hurdada ku laabtay kadib haddaan soo kacay haddana waa 9 subaxnimo magaaladan joogo xilli hore lama kaco soo hay ila yaabina 9 subaxnimo dadka dhanba kacaane waxaa waaye jikada hadda soo galay waxaa rabaa inaan quraac diyaarsado halkan qoosh baan ku garaacday saak salaadii subax markaan toosan qooshkan garaacay hadda inuu soo faxay ahayd muuna soo fixin marka waxaan filayaa yeastiga amba fixisadaan ku daray aan ku yareeyay wayna hadda cabaar kale sii sugo suu iigu faxo halkan waxa ii yaala waa hilibkan xalay baan soo iibsaday ana quraacdan subaxnimadkaan sameynaya habeennimadkii aan kasii fikiraa saaka waxaa rabay inaan canjeero dubo iyo laxoox hilib iyo khudaarna isku karkariyo aan isku sameeyo hilib iyo cagaar wixiiba xalay baan soo iibsaday xalay baan soo diyaarsaday waa kaas hilibkii aan soo jarjaray sidan aan kusoo riday milix yar baan kusoo daray biyana waan kusoo daray dabka intaan isla saarayaa ilaa saacad baan dabka u daynayaa hilib yaro jilicsan oo soft iyo macaan igu soo baxo markuu soo jilcaan khudradii iyo cagaarkii aan ku darsanayana waxa weeye aan ku darsan doonaa intuu hilibku soo karkarayo qooshkan waan sugi doonaa si fiican uu igu soo faxo cabaar yar markaan qooshka sugay hadda anigaas waaba dubayaaba laxooxdii dabkii waxaan soo saartay maqligii halkan kalena hilibkii igu karkarayo isagana hadda biyuhu soo kursan rabaa kaas laxoox dubo baan galay ani markaan canjeeradan qasayo waxaan ka samaystaa daqiiq cadaan ah iyo boorash baan isku darsadaa waxawaaye wax yaroo milixa iyo wax yaroo sonkora iyo wax yaroo fiixisa intaasaan isku daray maadaama ay ahayd laxooxdu hadda qas hadda dub dhowr saacadood oo kaliya taale xalay maanan qasan maaho marka waa canjeero boobsiisa oo hadda qas hadda dub emergency canjeero kaas canjeerada quruxda badan u jeedana iiga dubmayso maasha Allah ah waxawaaye hilibkiina intuu biyo kasoo qalaleen waxaan ku darsaday wax yaroo saliid ah basalna waan ku daray basashii hilibkan wax yar aan isku yara shiilaya insha Allah dhinacan kalena waxa waaye laxooxdiyaan ka dubanaya hilibkii basashii wax yar marka isku soo yara casaadeen waxaan ku soo darsaday khudrad isku jirto oo frozen vegetables khudrad badan waxay ka kooban tahay carrot beans peas cauliflower intaas ay ka kooban tahay waxaa kaloo ku darsaday kabsari toon waxaa kaloo ku soo darsaday wax yar xawaash isku jiro mindi spices la dhaho kadib intii isku walaaqay waa isku huurinaya ujeedaanba halkaana canjeeradeedii waxaa waaye aan ka dubanaya labada dhinacba ka shaqeysa la dhaasiya hawsha kuugu fududaato oo waqti yaro fudud quraacdaba ugu dhameysid waa kaas teesasaan waxa waaye u shaqeysanaya ujeedaan dhinacna video idinka duubaya waxa waa idin faahfaahinayay markaas canjeeradan dubay idin tusinayo quruxdeeda kadib mobilkeygii kalan soo qaatay video yaro TikTok aan duubaya sida canjeeradan u dubiya canjeeradeeda quruxdeedu say tahay alla faan badniya waxa canjeera dubowga waa soo dhameeyay hilibkii khudradina maanta dhan isku hurayeen kadib waxaa ku daray koob biyo ah waa isku soo karkariyay markii isku soo karkareen isku soo bislaadeen waxaa hadda ku darsanaya wax yaro spinach ah amba costa wax yaro xawaash tuman ah iyo oregano intaasaan ku daray kadib intana haddana isku soo yaro huriyay cabaar marka isku soo hurtay saana kusoo baxay hilibkii cagaarkii aan isku soo karkariyay hilibkii khudradii aan isku soo karkariyay quruxda badan u jeedaan kusoo baxday udgoonka macaanka quruxda ma la maleysan karo hadda saas diyaar noogu tahay dabkiyaan ka damiyay waxa waaye quraacdii kusoo diyaariyay miiska lagu quraacan lahaa bilaadhka laxooxdii kusoo riday oo aan saas dhexda ugu soo laalaabay shaahiyaan soo diyaariyay ani shaah ma cabo marka koob biyaan soo qaatay halkaana wax kusoo riday suqaaruun iska magac kale ma laha kaniye waa kaas quraacda yarka quruxda badan maasha Allah aan kasoo tuuray inaba caadi ma ahayn oo waqti yar aan kusoo sameeyay waa kaas hadda waxa waaye quraacdeeni cunayna ku enjoy gareynayna kaas bileedki waa kala guranay marka hore hal bileed inaan ku cunno ahayd laakiin markii dambe waxaan dhaymay marba cuntada inay igu wada tagto oo aan kiilooyin badan ay koraan qaybteeda yarka la iirido iyo canjeeradeeda saan u ogaado waxaan cunaayo kadib waa cunteynay meeshii weelka ka qaaday jikadan geeyay miiskan iska yar masaxay aan weelkii waxaas maxaa la gabar baa ay timaado oo shaqayso weelkii jikada ay nadiifiso
soo hadda intii aan quraacanayay baa waxa package baa iga yimid online-ka Amazon iyo Flipkart. Ani markaan wax dalbanayo waan isku beegtaa inay hal maalin ii wada yimaadaan. Soo waa kana kartoonkii ugu horeeyaan furay. Kartoonka waxaa ku jira waa bahalkan yar oo saan u eeg. Bahalkan yar waa face wash la iga badbadiyay group-yaan ku jiro Facebook ah. Baa maalin walba ammaan la soo taagan face wash kan inaba caadi ma aha saan uu ka dhigaa waa saan ammaan de unlimited ah bay la soo taagan yihiin. Marka waxaan isdhay bal iibso face wash kana dadka wajiga qallalan buu naasibaa baa la yiraahday. Diiwaaniga soo iibsaday. Soo face wash kan feedback-giisa ana idin soo socodsiin doona insha Allah haddii dadka wajiga qallalan uu anfacaya iyo haddii kale waliba aniga wajigaygu waa sensitive. Wax way lacagtiisuna waa yara qaali face wash kan laakiin waxaan isdhahay wajigaaga ka qiimo badan haddii la yiri waa wax wanaagsan wajigaaga naasibo wax loo dhigaa ma jirto ee lacagta gali. Shanta daayar baa kala iga timid Flipkart shanta daayarka cadaanka ah. Soo haddana waxaan sameeyay buugaagteedii aan soo qaatay. Waxaan rabaa inaan wax akhristo. Guys exam ba ii soo galaya wali timetable-kan jadwalkii maanan helin laakiin laba week gudahooda waxa way imtixaankaas lagu qaadayaa. Anigana way ogtiin qof aad iyo aad u mashquul badan ahay. Wax way waqti ma hayi. Waqtigeyga marna shaqaan ku jira marna YouTube aan busy ku ahay marna gurigeyga. Marka maxaa la dhahay waqti ima banaanaba in yar oo nasto bas aan haystaa. Marka hadda wax weeye imtixaankan chance ugu dambeeyay haysto weeye haddii aan ka xanuusto ama imtixaankan gali waayo ama aan dhibco hoose keeno shahaadadeeda ay gubanayso marka inaan dadaalo waaye. Marka waxaan go'aansaday si walaal mashquul u ahay inaan hal saac aan u dhexgeliyo jadwalkayga hal saac aan ku darsado oo wax akhrisa oo aan hadda iska sii bilaabo wax akhriskayga ma fahanteen. Marka waa kaasa maanta oo kale 2 saacadood baan rabaa in insha Allah wax akhristo laakiin maalmaha kala garan maayo intii aan heli doono. Soo aniga saan wax akhristaa idinka daba geeyay waxaan sameeyaa hadda maanta maadadan akhrinay waxa la dhahaa business analytic. Labadan book mid ka mid ah aniga wax ku dhigtaa ka kala maktabada ka soo iibsaday saan idea aan uga faa'iido. Soo buugaagta akhrinaya casharkii baan akhrinaya casharkii waan fahmayaa inta ugu muhiimsan oo important ka ah baan soo qaadanaya soo khulaasaynaya buugan ku qoranaya. Soo inta aan khulaasaystay oo muhiimkeen kala soo dhex baxay casharkii waan xiftiin waan fahmi waan memorize karayni. Soo saasaan ku wadaa waanan xifdiya. Soo 2 saacadood baa halkan fadhin doonaa wax aan wax akhrisan doonaa insha Allah. Soo video-ga intaan ku soo ekeenaya I hope inaan wuxuu ka faa'iido doontaan video-gan mid kale walaalayaal video-ga waa daawanaysaan wax leeyahay ma saarisaan leegta lacag meedu ku qoraysay waa bilaashi walaashina ahaa igala baqayn like video-ga like saar insha Allah asxaabtiina la sii share gareeysan asxaab sidii kale u qurux badan oo u qaayb badan aan u helo insha Allah. Soo intaan video ku xiga ka kulmayno waxay ka tagaya maca salaam.